qaybaha ka mid ah kanaalka mara gudaha magaalada Paris ayaana isaga loo ogolaaday shacabka inay ku dabaashaan waqtigoodana kuna qaataan maadaama dadka laga baqdin qabo inuu coronavirus aad u saameeyo ay saxmadda ku badiyaan magaalooyinka aadka u yar ee population-keedu maadaama magaaladan ay ka population badan tahay magaalooyinka kale dadka badan ee Soomaalida ah xayb qurux badan inkastoo dhulkeenu uu leeyahay haddana waxay nooga duwan yihiin xagga maalgashiga iyo qalabka casriga ee Soomaalidu ay haystaan dhulkooda xeebaha maadaama shirkadaha Soomaaliga ay aaminsan inay xeebta liido sidaan oo kale ugu maalgashtaan waxaan iska ilaalinayaa wadada maadaama dadku ay marayaan inaan qaybka istaago weeysi aan kaamirada idinku dubo qaybta kale haddii aad caruurtaada ku daashaan qaybta dawaalka dhinaca kalena waqtiga hore waxaad la soo qaadan kartaa caruurtaada qayb waqtiga baashaala ah iyadoo qaybta caruurta kala duwan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen lagu sii diyaariyay haddaba markii aan intaan wax ku sii daro nolosha Soomaalida way haysan karaan oo Paris ma xayisiinay laakiin waxaan kaga dungu leeyahay 80 jir Paris u dalxiis tagayo waxa lagu mashquuliyay in uu baaskiilkaas badda ku dul wado halka odaga Soomaaliga ah ee awoobaha baaleerada noo ahna ay ku mashquulsan yihiin inay siyaasadda iyo qabyaaladda u meeriyaan da'yarta soo korayso taasoo saameyn ballaaran ku leh xagga nolosha dalkaaga adiga dhisan kara haddii aad sinti ku darto amba dollar ku darsato amba aad niyadaada kaga taageerto amba xooggaaga ku bixiso laakiin xataa qurbo joogta haddii ay ku dayaan hadal dumin u eg wuxuu dhaawacayaa dawladnimada yar aan dhoodhoobanay taasoo wax walba qasab nagu ahaa aan qaadanay xataa 4.5 in doorasho aan ku galno Soomaaliya marka waa dal adigu leedahay cidnaysan ka xigin tusaale yar baan idin soo qaadanaya maalin qura haddii noloshaada inay risk gasho dalkaaga ka bax lagu dhaho sanadii 1991 ilaa 2011 qayb ka mid ah Soomaaliya waa la isdilayay Soomaaliya waxaan idin rajaynaynaa inaad fahantaan qiimaha nabadda ee nolosha ee leedahay dagaalo wajiyo badan yeeshay qabyaalad diin Mareykan oo Soomaaliya uu soo galay ayndiid oo kula dagaalamay Soomaaliya awoodda dunida istusay wax walba geesiyada waa isku sheegtaan laakiin xagga taxadirka iyo wax ka qabashada inaad qaanataan waanada oo kaliya ayaan idin dhiman maalin wandinimada Soomaalinimadu waa maalin qura markii ay bannaanbaxayaan cabasho ay dhigayaan waa maalin qura qofkii nool ee dhintana waa maalin qura ilaawshiisa waxaan idinku dhaafayaa inaad fahantaan anigoo aan dan gaarana ka lahayn fiidiyogan cidiga ku daawato waana Maxamuud Milaano oo mar kale leeyahay sida ay nabadgelyo